بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسنا خيارته وديغا داونaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwadii ugu dambeeyay wadaadahana kale ka daawataan page-kan waa 6 bisha 6 2026 muqaal wareedkan soo soconaya hadii weyn ee macluumaadka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah muxuu yahay isbedelka ay sadad badan ogeyn ee ka socda magaalada Muqdisho waxa kale oo maqli doontaan macluumaad ku saabsan maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed oo labadooduba madaxweynayaal hore sidoo kale waxaad ku maqli doontaa macluumaad ku saabsan ciidamo isku hor fadhiya Mirinaayo iyo xaaladda soo korortay maxay tahay waxa kale oo maqli doontaa macluumaad ku saabsan intaas aan ku soo sheegay oo faahfaahsan intaan ku soo gudin fadal muuqaalka leeka saar oo share garay aynu ku bilownay saaxiibayaal si aad muuqaalka hordhiciisa aad ku maqliseen waxa lagu yiri macluumaad soo baxay oo isbedelka aysan dadka badan ogeyn sida lagu sheegay waxaan rabnaa in dad badan ay wali si khaldan aysan u eegayaan ama aysan u fahansanin xaaladda Soomaaliya ka socota marka aad dhageysato doodaha siyaasadda iyo sidoo kale waxaad moodaysaa in muran dhab ah oo ku saabsan doorashooyinka muddo-kororsi dastuurka khilaafka u dhaxeeya dawladda iyo mucaaradka arrintu waa ay jirtaa waana sax waxayna u muuqataa laakiin marka qaarkood waxay u muuqataa sheeko dhab ah oo ka socota Soomaaliya waxaad xusuusataa sanadihii hore ee la soo dhaafay markasta oo Soomaaliya ay gasho marxalad wax doorasho qof kasta wuxuu garan jiray sheekadu waxay ku dhamaan karto siyaasiyiinta oo iskhilaafa hadallo adag isdhaafsada ama islaafsan jiray marka qaar xaaladdu meel khatar ayay gaari jirtay laakiin ugu dambeyn waxa lagu dhameyn jiray wada hadal ama shir sidoo kale waxa imaan jiray shir cadaadis oo dibadeed waxaana la gaari jiray heshiis cusub markan arintu si kale ayay u socotaa ayaa lagu yiri warbixinta haddii qodobkaas halkaasi uga tagno imika iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ee kala ah mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta booqasho ugu tagay madaxweynihii hore ee dawladii KMT ee ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed sida uu sheegay afartii bishan dagaal culus ayaa dhex maray dawladda iyo madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed ee degmada Cabdicasiis oo sidoo kale lagu yiri labada madaxweyne ee hore ayaa kulankooda uga wada hadlay xaaladii ugu dambeysay ee dalka iyo dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo khasaaraha uu dhaliyay sida ay xaqiijiyeen ila waraadiyo xilkasa sidoo kale Farmaajo ayaa garab istaag u muujiyay Shariifka isagoo oo sheegay inuu ka xun yahay dhacdadii lagu hor istaagay isaga iyo kolonyadii uu watay xilli oo shalay ku sii jeeday baa la yiri gurigiisa oo ku yaala agagaarka garoonka aadan cadde kulankan ayaa imaanaya xilli shalay Shariif Sheekh Axmed uu qaabilay wufuud ka socotay dawladda Turkiga ee dhexdhexaadin wadeen mucaaradka iyo dawladda si loo qaboojiyo xiisadda ka taagan halkaas haddii qodobkaasi halkaasi uga tagno saaxiibayaal aynu eegno imikana qodobkii kale iyo ciidamada is horfadhiyay wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in wali xaaladdu ay kacsan tahay lana dareemayo gudaha degmada Cabdicasiis laga dareemayo ee gobolka Banaadir gaar ahaan aaga Mirinaayo oo shalay ka guuray madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ninka lagu magacaabo xiisadda ayaa lagu waramayaa inay u dhaxayso ciidamada dawladda iyo kuwa ilaalada u ah taliyihii hore ee xoogga dalka General Odawaa Yuusuf Raage oo isaguna halkaasi ku sugan waa sida warka loo dhigay sida ay ogaatay warbaahintu ciidamada ammaanka ayaa halkaasi ka wada baaritaano oo guri ah iyagoo ciidanka ilaalada ee Odawaa ay ka diideen in la baaro taliyihii hore gurigiisa waxayna taasi keentay in la dareemo dhaqdhaqaaq ciidan oo iska soo horjeeda saaxiibayaal